dhaqashada xooluhu waxa ay ka mid tahay xirfadaha qadiimiga ee dadka Soomaaliyeed. waxa ay taariikhyahan badan qabaan in xoolo dhaqashada, beeraha, ugaarsiga iyo kalluumaysigu ay ka mid yihiin xirfadaha saldhigga u ahaa nolosha dhaqanka dadka Soomaaliyeed. muddo aan ka badnayn dhowr iyo samano waxaa magaalooyinka waaweyn ee dalka ka hirgelay aragti u muuqata in ay guulaysan doonto oo ah in dhaqaalaynta iyo ka manaafacaadsiga xoolaha lagu tijaabiyo magaalooyinka, iyada oo xoolaha gacanta lagu quudinayo halkii ay daaqi jireen, isla markaana caafimaadka iyo calafkoodaba loo qaabeeyo hab cilmi ah. magaalada Muqdisho ayaa ka mid ah magaalooyinka xoolaha, gaar ahaan ishinka lagu xanaaneeyo iyada oo ganacsi laga sameynayo. halkan waa xarunta warshada caanaha lo'da ee Som Milk. in ka badan 100 neef ayaa halkan ku jira. waa caanaha hadda laga lisay lo'dan sida u jeedaan, bal waxaan doonayaa inaad tijaabiyo. ma tijaabi karaa? si fiican. caanaha ma sidaan baa bulshada ugu geysaan mise wax baa ku dartaan? caanaha ayagoo fresh ah oo markii la soo lisay ayaan dadku u geynaa. wayna aad iyo aad ayeen ugu heleen hadeertaan. lo'dan maaha midda aan dhaqanno ee waxaa laga keenay waddanka dibaddiisa. mar haddii lo'daynu laga mari la'yahay waddooyinka qaar ee magaalada tiro badnaanteeda awgeed, maxay tahay sababta keentay in dibadda lo' inoogala soo iibiyo? weydiimahaas waxaan hordhigay maamulaha warshadan. waa mahadsan tahay. waxaan kaga dooranay lo'da oo Soomaaliya joogto. caan ahaan haddii la dhaho waxaa ka caano badan, lo'dan ayaa ka caano badan. saas ayaan ku dooranay. mar dhowna insha Allah haddii ilaahayd waxaan samayn rabnaa inaan anagoo kaashanayna dhaqaatiir Soomaali ah inaan isku talaalno lo'da Soomaaliya iyo lo'dan aan isku talaalno si loo helo lo adkaysana leh, caano badanna leh, si loo helo ayaan rajaynaynaa. waxaan halkan rabaa inaan anoo ka faa'iideysanayo inaan mahad ugu jeediyo shambaniga shirkad hay'ad la dhaho Geel oo naga caawiso dhinaca dhaqaatiirta xoolaha, oo dhaqaatiir Soomaali ah noo soo dirto oo mar walba koontaroosha caanaha. waxay kaloo naga caawiyaan talasiinta, waxay kaloo naga caawiyaan tababarada. hay'adaas ayaan rabaa inaan mahad ugu jeediyo halkaan Geel la dhaho. imise qaab ayaa loo iibgeeyaa caanaha lo'dan laga liso? بعد waxaa ku jira caano lo oo saafi ah, caano lo oo iska caadi oo wax oo isbedel anaga qaybta caanaha markii loo fiiriyo packaging korto dhowr nooc waa qayb yogurt waa aniga qaybta yogurt ma dhinacaas ma jiri dhinaca oo caanaha oo bacaha ku jira. caanaha waa caano lo oo iska saafi oo waxba laga bedelin. mar waa subaxda hore markii la soo liso, marna waa markii galabtii la soo liso. labadaas mar ah xirnaa. aniga qaybta aan ka shaqeeyo waa qaybta production ka ujeedaan, waa qaybta oo packaging ka ama markii caaniga la soo diyaariyo yogurtka loo diyaariyo si loo baajiyo iyo qaybinti iyo meeshaan joogo. oo hadda waxaan maraynaa maaragtay ilaa iyo 50 ilaa iyo 30 darsan inaan maalintii aan bixin oo yogur ah, taasoo customer badan aan magaalada kaga leenahay. marka badi guryaheena waxaa laga cabaa caano boore budo ahaan loo iib keenay. haddaba caanaha lo'dan iyo kuwa budada ah maxaa farqi ah oo u dhaxeeya? والله عانها نقطة عانها كلا حب واحد ساس وين ممكن كلا جوده عانها يكون كوسافي وعادة وجد والوصل لسه وقت أو بعد وعيد ست الوقتين أيوة. لكن عانها بدر كانوا حاجة لهم كوان. إن أجيران 600 لتر أو عانها لقطة أو صباح له لقى هلا دافع عاصمة أيها بالشدة مجالات كل رجالينيسا عبيد عانها لقطة أو عن بضع هن لقي عانها مع محمد يحيى جينو مستقبل ميديا حرونتا caanaha lo'da ee Som Milk duleedka Muqdisho.